Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya suuqyada online-ka ah ee wax lagu kala iibsado. Suuqyadani ayaa sahlay in qofka isaga oo gurigiisa jooga uu badeecadii uu doono dalbado fadhigiisana loogu geeyo. Wariyaheena Cabdilcasiis Barrow oo magaalada Muqdisho ku sugan ayaa arrintan eegaya. dunida casriga sii noqonaysa iyo tiknoolajiyada ayaa abuuraya fursado cusub. Soomaaliyana waxay ka mid tahay dalalka Afrika ee ka faa'iideysanaya. Halkan waa suuqa weyn oo online-ka ah oo Soomaaliya ka dhisan oo lagu magacaabo Soomar, oo ay maalin walba ka tukaameystaan dad badan, laakiin qofka wax iibinaya iyo kan iibsanayaba qadka internetka ayay ka macaamilaan. Waxaana fikradan hal abuuray dhalinyaro ka baxay jaamacadaha Soomaaliya. haddana waxa uu shaqaynayaa muddo 5 sano ah. bilowgii hore marka aasaaseenay 2016 istaraatiijiyada aan u adeegsanay inaan dad ka dhaadhicno waxay ahayd marka hore waxaan dhisnay website ama application la qaabka dadka Soomaaliyeed dhaqan ahaan wax u iibsadaan. marka tusaale ka hadlo qofku markuu rabo inuu dukaan ama business wax ka iibsado alaabtu gorgoriya qiimihii weydiiya alaabtu arkaa kadib ayuu lacagta bixiyaa. systemkeena waxa uu ekaysiinay hab dhaqameedka dadkeena ay wax u iibsadaan. marka hadda Soomar soo gashid waxa arki kartaa alaabihii qiimihii meesha ku yaala kilig marka ku dhahdid xagee ku keenaa. sidoo kale paymentiga lacag bixinta waa habka caadiga haddaba aan isticmaalno oo adeegyada mobile money-ga oo wadankeena caanka ka ah ayaa isticmaalnaa. ganacsigan ayaa fududeeyay in dad badan ay si sahlan wax u iibsadaan iyagoo guryahooda iyo goobahooda shaqada jooga. waxaa dhinaca kalena uu fursad shaqo abuur u noqday dad badan. haddana aasaasiyaasha suuqan waxay aad ula dhacsan yihiin sida ganacsigooda uu kobaca u sameeyay. markaad bilowdeen ilaa hadda ganacsigan maxaa isbedel u sameeyay mase kobcay? runtii bilowgii hore maanan filayn kobaca hadda ku yimid. runtii waxaana aad noo saaciday waa fahmi kartaa dadkeena dhalinyaro u badan percentage-ka ugu badan. sidoo kale isticmaalka technology-ga aad ugu sii fiicanahay waliba magaalooyinka waaweyn. marka maadaama social media isticmaalkeeda aad ugu sareyno hadda aragtid Soomar dabcan waa sidoo kale shirkad technology oo marketing dhinac ka shaqeyso dhinacna ka shaqeyso e-commerce-ga. marka waxa aad si xoog leh u isticmaalnay baraha bulshada oo aan ku gudbinaa fariimaha ganacsigeena iyadoo meeshaas qofka linkiyada uu alaabta ka iibsan karo uu ka heli karo. marka waxa aad noo saaciday dabcan social media qayb weyn ka qaatay business-kan. runtii kobac anaga markii hore aan filayno waliba oo aad ah ayuu sameeyay. dhinaca kale macaamiisha suuqa Soomar ku xiran ayaa alaabahooda loogu geeyaa goobaha ay joogaan. waxaana ka muuqanaya in hadda Soomaalida kalsooni ay ku qabaan inay wax ka iibsadaan suuqyada internetka ee ka dhisan gudaha dalka. ganacsiga dalka ayaa sameynaya kubac xoogan kadib dagaallo waqti dheer ka jiray Soomaaliya. waxaana ku soo biiraya fikrado iyo hal abuuro dheeraad ah oo la jaan qaadaya caalamkan casriga ah. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.